بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السود وهذا مقعي عبد الغني حوش بره. هل كأننا جلسة عطانا ويوتيوب كعبد الغني حوش بره. يبرنامج كي إنه مقعد درني وياه جرمركا أما ليبن إن دوتشلاند. واحد كسود واتان 10 كي صدحات سواشي كوبي طبراد ومانتا aynu iyadana insha Allah sharaxi doono sida caadada inoo haydna casharka gudihiisa iyo casharka intiisa dambaba ama qaybtiisa dambe waxaynu ku soo qaadan doonaa wixii markaa talo iyo tusaale aan isleenahay faa'iido ayay u leeyihiin su'aasha 11aad waxayna leedahay qofku muxuu sameynayaa markii uu caajis u dareemo caajis qofku markuu dareemo muxuu sameynayaa saddex qaybood oo jawaabo ayaa hoose laynoo soo dhigay midka doora ayaa la yidhi ta koowaad ee ugu sarreysa waxayna leedahay qofku inuu magaranaysaay hawada dabiiciga ee dibadda uu u baxo deetana halkaa uu magaranaysaa ku yara socdo gaadhiga inuu joojiyo weeye macnaha uu dibadda u baxo kadibna uu hawada qaato u socdo su'aasha dhexe inta badan ma macneeyo laakiin haddana waxaan moodaa inay ii imanayaan su'aalo la iga weydiinayo laleeyahay maxaad u sheegi weyday horena waan u sheegay waxaan idhi su'aasha khaldan ama aan u malaynaya markaa khaladka haddii aad turjunno maskaxda kaa gelaysaa ama aad ku qabanaysaa maskaxda haddaad ku qabatana hadhow bay ku rabshi doontaa marka wuxuu ku leeyahay qaybta kale marka aad labaad marka aad lulooto muusig inaad dhegaysatid marka muusig dhegaysigiisu dee hurdo kaa kaxayn maayo sida normalka ah ta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan leenahay inaad samaysid maxay nasniino waayo hurdo markay ku qabato aad daashid waa inaad gaadhigii baarkintaa sida tii hore hawada keliya marmar biirtana waa inaad nasataa waayo waxa dee hurdada iyo caajisku ku qabanaya waa daal weeye markaa daalkii waa inaad kasoo kowsataa oo yaro nasataa saacad laba saacadood badh nusu saac 40 daqiiqo inaad yaro kala bixiso oo jimicsato haddaad markaa yaro gabi karto oo iyagu dadka safarada iyo waxa ku seexdaa tahay inaad yaro seexato oo saacada ku xirato kadibna marka aad yaro indhaha yaro casaysato ay qaadiradu ka baado inaad gaahod waditaankaaga dib wadato almuhiim su'aasha saddexaad jawaabta saddexaad ugu hooseysa waxay leedahay inaad nasato aynu eegno waa inoo saxsan tahay buundooyinkeeduna xagga sanaad ka arki kartaa waa 4 buundo weeye su'aasha 12aad gaadhigu ama waditaankaagu sidee hurdadu u saameyn kartaa ama caajisku u saameyn karaa waditaanka gaadhiga aad wado ama socodka wadada aad ku socoto caajisku iyo hurdadu sidee u saameyn karaan waxay u saameyn kartaa in aad magaranaysaay maxaa la odhan jiray aad hurdadu kaa tambadato oo deetana falcelintaadu markaa ay wax u dhinto falcelinta waxaa la yiraahdaa yani qofku go'aan qaadashada uu go'aan qaadanayo marka wax ku yimaadaan ama falka uu sameynayo haddii wax kugu soo boodaan oo kale wadadii aad socotay gaari kusoo magaranaysaa gaari meeshii yaalla aad aragto bahal magaranaysaa xayawaan yar hadduu ku horboodo falcelintii aad sameyn lahayd ayay wax u dhimaysaa sababtoo ah markaad lulooto aad indhuhu isku kaa soo qabsamaan waxa weeye falcelintaadu feejignaantaadu ma shaqeynayso labada su'aalada kale iyaguna macna ahaan way iska agdhow yihiin iyaduna waxa weeye uun dareen qaadashadii ama dareenkaagii ayay wax u dhimaysaa ama soo jeednidaadii aad soo jeeday aad wax walba kala arkaysay ayay iyadu wax u dhimaysaa marka af Soomaali marka lagu macneeyo waa isku mid laakiin jarmalku laba u kala qaaday su'aalahana saad arkaysaan inta badan kuwii hore 10kii hore soo dhaafnay bay ka agdhow yihiin kullina kun iyo xogaaguna yar mooyaane inta badanna saas ay su'aaluhu iskugu noqonayaan sababtaasna weeye sababtaan u niri macnahooda oo kaamil ah xaraf ha u raadinin sababta aad ku dabaqaysaa waad ku wareeraysaa aynu eegno way noo saxsan tahay buundooyinkeeduna waa 4 weeye allahu musta'aan su'aasha saddexaad baynu imika u taginaa halkeeba ayay ka dhici kartaaba lagu yidhi ama keeni kara situation magaranaysaa ama khatar fara badani halkay ka dhici kartaa khatar fara badani
maxaa keeni kara su-aashii hore iyadoo ka nooca kale waynu soo marnay iminkana way iska ayna dhow yihiin khatar maxaa keeni kara ama khatar yani xun oo dhacdo xun oo dhacda ama maxaa keeni kara waxaa keeni kara durshnish angebaste geschwindigkeit in aad magaranaysaay surcadaada ama socodka gaadhiga aad ku socotay oo la malaysanaynin haddaad meel 70 iskaga socoto 130 waa socod aan la malaynay wey marka ma garanaysaa xawaarahaaga oo dheeraada ayaa keeni kara ama xawaarahaaga oo bata ayaa keeni kara meel markaa aan laga filayn kana wuxuu ku leeyahay waxaa khatar keeni kara maalintii laydharka ama laydharka fuulka ay hore usoo sheegay inaad ku socoto marka maalintii daacadceed waa jirto oo fuul maahe 100 fuul haddaad shidato waxa weeye cidna waxba yeeli kari maysid sababtoo ah waxaa jirta cadceed marka taas macquul in lama aha duurshliigan kabalibile farsoga gaari ma garanaysaa wadada ku dhex waqtiya noocu doonaba ha u waqtiya ama ha iska yaalo ama ha u dansanaado qofka siduu yaqaano ama noocu doon ha u dhex yaalo gaari wadada markaa dhex yaala wixii doonaaba ha sababaane iyaduna khatar xun ayay keeni kartaa waa in hore usoo sheegnay waayo gaarigu markuu aan ku socdo 100 ama 120 150 marka ku socdo oo gaari meesha yaala wadada dhexdeeda yaala wadada oo tabaanka dhexdiisa yaala aan ku imaado khatarteeda ayay leedahay dadka baabuurta magaranaysaa wada ama wadooyinka maraana fahmi kara idinkuna insha Allah bidalka karim waad arki doontaan Allah idin fududeeyo aynu eegno su'aashu waa inoo sax weeye wadooyinkeeduna waa 4 macnaha guud ay daaran tahayna waa sidaas weeye macnaha guud ay daaran tahayna waa aynka su'aasha afraad ayaynu eegaynaa casharkeena maanta gaariga maxaa wadada ama waditaankaaga ama gaariga aad gaadiidka aad wadatay maxaa wadada ka saari kara wadada maxaa ka saari kara gaarigii wad wadataa boqol baad ku socotaa ama waxaad ku socotaa in ka badan wadadii weyneed baad haysataa wadada weyn ee raahlo af Soomaaliga wadada weyn baad haysataa wadadii weyneed baad haysataa haadkaagi baad haysataa maxaa haadka ka saari kara haadka waxa la yiraahdaa labada liid ee cadaanka ah dhaxdooda way gaari kasta waa inuu halka ku socdo labada liid ee cadaanka dhaxdooda waa dhinaca adigu haadka adigu aad leedahay way marka haadkaaga aad haysatid maxaa ka saari kara oo haad kale kugu dari kara ama maxaa ka saari kara wadada gabigeeda ka saari kara way farabadan yihiin qaar kale oo farabadan uu keenay doona waynu soo marnay maalintii dhaweedna imikana kuwa u dhadhow buu keenay aynu eegno saddexda jawaabood wuxuu yiri uplinkum in ay wax ku mashquuliyaan af Soomaaligu waa isku wada mid inay wax ku mashquuliyaan ama aad wax ku mashquushid way iska agna dhow yihiin marka isagu tan uplinkum inay wax ku mashquuliyaan qof ku mashquuli kara sheeka ku mashquuli karta lagu mashquuli kara waxa weeye inay wax ku mashquuliyaan on of max amkite inaad adigu wax ku mashquushid inaad adigu wax ku mashquushid marka almuhiim macnaheedu waxa weeye gaarigii aad waday inay ama wax ka mashquuliyaan ama aad wax ku mashquushid waditaankii aad waday aad wadada dhex socotay mudikite caajis ama hurdo ama lulo nima sidoo yaqaano ayaa yadana wadada ka saari karo waa inaga hore u soo marno gaariga waxa weeye saad wadada ugu hayso hadii aad lulooto oo hurdooto inta badan waxa weeye waxa halis aad u tahay inuu wadada kala baxo sababtoo ah yaani dareenkaaga qayb kamid ah seexday talooyinka aan inta badan idin siinayna waxay tahay hadii aad safar dheer galayso maalinta ka horeysa hore yaani waqtiga ka horeeya haysato hore u sii seexo ama waxaad sameysaan oo kale adigoo daalan oo shaqo ka soo baxay safar ha gelin waa laba arinta kale ee ku fiican waxa weeye Allahu musta'aan inuu nirahdo haddaad doonaysid safar dheer aad u socotid inaad habeenkii gurigaaga seexato alaabtaada iyo waxaaga iyo nidaamkaaga soo ku diyaarsan saqda dhexe xilli macquul ah inaad baxdo oo habeenkaas ma garanaysaa guura gasho baabuurta waxa weeye darwalintii hore way guura gali jireen oo waxa weeye habeenkii faa'iidooyin badan buu leeyahay wadadii baa ma garanaysaa ama kala hadda oo kala subaxii hore inaad ka lahdid wadadii waa firaaqo adigi waxa weeye daal kuma hayo waxa weeye xaaladaadu ma garanaysaa xaalad wanaagsan arinta kale oo ku daraya waxay tahay marka aad safrayso qof hurdo badan xagga hore ha soo fadhiisanin sababtoo ah dareenkaagu wuxuu la xidhan yahay dadka gaariga adiga kula socda adba bilaadan baad iyagu si u seexdeen hurdo ku qabanaysaa marka waa inaad qof ku sheekeeyo oo ma garanaysaa kula socdo dareenkaaga oo markaad yaro looto ku yiraahdo miyaad seexatay waxaan iska ilaali xitaa wararka qaar qofta kula fahmi kara waxaan soo gaabiyo saddex qof baad tihiin adigoo darawala iyo laba qof oo kale labada qof oo kale qofka gaariga
midna hadduu darawal yahay midna uu darawal ahayn darawalka waa inuu xagga hore soo fadhiistaa mar walba waa muhiim arrintaas ama liisan ha haysta ama yuun haysan sababtoo gaarigu kula fahmaya marka ableekun inay wax ku mashquuliyaan on of max amkite inaad adigu wax ku mashquulshid mudikite inaad caajis ama hurdo ay ku qabato lulo aynu eegno isqashtik buundooyinkeeduna waa 4 buundo weeye next aynu eegno shanaad su-aasheena shanaad aynu eegno maxaa keeni kara unfal ama shil khatar ah shil halisa maxaa keeni kara shil halisa maxaa keeni kara shilalku way halis kale halisaysan yihiin gaari yaroo meel ku xaquuqdaa waa shil laakiin shil halisa ma aha waxa weeye ma garanaysaa gaari wadada kaala baxaa wada waxba ku noqon gaariguna waxba ka noqon waa shil weeye laakiin shil halisa ma aha laakiin shilka haliska ah waxa weeye shilka keeni kara dhaawac ama dhimasho ama burbur gaadiid waa ma garanaysaa ka keeni kara weeye marka ilaahay inuu keeno aniga iyo idinkaba marka jawaabta saddex weeye ta ugu sareysa waxay leedahay gishfidikaydkii weeye waxa weeye socod aan laga malaysanayn ama socod aan la filayn ama socod aan loo baahnayn badhe Soomaaliga saas ku saxsanaanaya oo filaya socod aan loo baahnayn waayo way soo sharaxayna ku noqon rabno socodka marmar baa loo baahan yahay wadadu markay furan tahay wadadu markay ay xiran tahay ama wadaduna yar tahay socodka faraha badan leh socodka orodka faraha badan leh loo baahna marka orod aan loo baahnayn ayaa keeni kara halis khatar ah keeni kara ay faahan mid suuq qingam Amsterdam inaad gaariga ka horeeyay aad xoog ugu dhawaatid oo tabaanka markaad marayso gaariga ka horeeyay inaad xoog ugu dhawaatid waxa lagu qiyaasaa halka intee su'aashaas saddex horna way noo soo jawaabta saddex horna way noo soo noqotay waxaana filayaa jawaabtu inay ka dhex yani su'aal inay ka dhex gooxiso oo intee u jirsan karaa gaariga markaan awta baad ka saaranahay waxaad ku baran doontaa faarshtuudaha waxaad u jirsan kartaa laba gaari inay dhex galaan laba gaari in ay idin dhex maraan ama dherarkooda ayaad u jirsan kartaa sidaas ayaana ku fiican waayo waxa ka dhici kara wax kasta gaariga ka horeeya haddii ay garanaysaa deero ama daba taag ama xayawaan uu kaga soo boodo wadada break halisana uu qabto adigiina intii lagugu talagalay in ka yar aad u jirtid saad u ordaysid nab ayaad leedahay deetana adigiina waxaa laga yaabaa inaad ku dhafweydo gaariga ka horeeyana dadkii baabi'isaa laga yaabaa yaarinta ta saddexaad waxa weeye gaadiidka wadada kula isticmaalaya aynu hore usoo sharaxnay baaskiilka baabuurta Allahu musta'an mootooyinka wax kasta oo gaadiid ku saabsan in aad ma garanaysaa aad ka digtoonaa weydid adigoo gurigaaga xaafadaada dhex socda konta ku socda oo iska socda hadii aad ma garanaysaa iska baraad la'aatid oo baaskiil kugu soo baxo oo tijabiso waxa weeye khatar ay keeni kartaa marka baaskiilku gaadiidka uu soo galaya dabcan waxa weeye gaadiidkii wadada kula isticmaalayay oo ka digtoonaa weydid aynu eegno waa sax weeye maadaama ay inoo noqotay cagaar ama akhtar buundooyinkeeduna waxa weeye waa 4 weeye allahumma salli ala muhammad aynu eegno ta lixaad mit welchem Verhalten von Kindern müssen sie an zu berichten sabqa Strafen rechnen waxay daaratahay su-aashan aynu leedahay maxaad ka malaysanaysaa ama aad ka filaysaa ciyaal yaryar oo taagan wadada meesha ay cadaanka iyo madowga ka leedahay ee loogu talagalay dadka inay ka gudbaan maxaad ka malaysanaysaa jawaabta koowaad ee ugu sareysa waxay leedahay sie laufen auf den Sammelstrafen ohne auf den Verkehr zu achten ilmihii waxa weeye wuxuu soo gali karaa wadadii isaga oo gaadiidkii wadada marayay aan iska ilaalin buu soo gali karaa wayna dhacdaayo dad badan oo Soomaaliyeed arintaana sameynaya waan arkaa oo kale anaga xaq leh meeshan xaq waad leedahay laakiin haddii dhaawac xun ku soo gaaro ama burbur xun ku yimaado ama aad naftaba weydo xaqi aad lahayd waxba ku sheegi maayo laakiin waxa weeye marka aad saas kale u socoto baabuurta qaar baa xoog u ordaya wadadan cadaankii madowga waa sax dadka iska leh wayna inoo iman doonaan shuruucdeeda iyo sharciyadeeda laakiin waa inaad baabuurta iska ilaalisaa qaar baa ciyaal suuq wataan qaar baa haddii doonaan cunsuriyi wataan qaar buu nisir khaasan wataa waxba kama qof sir khaasan wataa waxba kama ogid qaar baan adiga ku filayn oo hadduu doono sii jeedo oo qof kale la sheekaysanaya konton 60 70 buu ku socdaa meesha loogu talagalay kontonka deetana adna waad soo gasho wax tiraan xaq leh deetana hoberiska lagu yiri marka maxaad faa'iideysaa waxba faa'iidemaysid
ilmihiina waa saas oo kale isagoo aan iska eegin gaadiidkii wadada marayay ayuu soo galayaa wadada waa dhici kartaa waayo waa ciyaal ta labaad ilama saxsana maxaa ahaydee uu iska eegayaa gaadiidka uu iska hubinayaa oodka gaadiid ku socday kadibna wuu sugayaa ilmihii intii aad dhaafaysid taas macquul ilama aha waana ilmo weeye way ka suurtoodaa kamana suurtoodo ku talageli maysid adigu sikaqayan ohne akem baaqan grund auf dem Samra-Strafen und laufen zurück ilmihii si u socday wadadii uu soo dhex galayaa meeshii shabqa istiqaafanka ama meesha ay dameer farowga uga eg tahay wadadu ama ay cadaanka iyo madowga ka leedahay bartamaha markuu marayo ama dhexdhexaadka marayo ayuu ilmihii dib u kala jeedsanaya oo dib u noqonayaa yani hadduu doono qole ka dambaysa ku noqonaya wuxuu doono ha u noqdo way dhici kartaa waayo waa ilmo yar wey inuu marka hore kugu ciyaaraya laga yaabaa wadada soo galo kadibna uu dib noqdo adiguna markuu bartamaha maraya istiraahdo uu ku dhaafay dhaqaaq deetana uu kugu soo noqdo deetana ilmihii yaraa aad halis aad gelisid adiguna aad halis ku gashid way dhici kartaa aynu eegno tuqayn waana shan weeye waayo shabqa ishtiqaafanka ama meelaha magaranaysa wadada dameer farowga uga eg tahay waa meelo halis ah weeye waa shan mundo su-aashana waa shan tu kaloo shana haddaad khalado imtixaanka markaad gelaysa hore usoo sharaxnay 10 mundo ayay noqonaysaa calaa duul automatic wax dhacday laakiin tan iyo laba kale oo mid laba ah haddaad khaladid ama mid saddexa haddaad khaladid ama mid afar haddaad khaladid 9 bay ku noqonaysaa waad baasaysaa insha allah su-aalaha markaa shanta mundo ana inaad aad iyo aad isoga ilaalino ayaa loo baahan yahay aynu eegno unsere Fragen für heute ist 17 weetan su-aalaheena maanta das ist 17 tan waa 17 17 womit ist zu rechnen ma garanaysaa maxaa iyadana waa isku mid maxaa ka malaysan karaa wey ama ka filayaa ilmo yar oo taagan ama ciyaal yaryar oo taagan meesha la yidhaahdo ambalka ama birta leyrhka ama birta baabuurta kala celisa ama ishaarada saadoontaba uu magaranaysaa dhaho das die Kinder waxaa ka filayaa ciyaalka yaryar schon losrennen wenn die Ampel in meiner Fahrrichtung von grün auf gelb umschaltet bilmithaal oo kale imika cagaar buu ku ahaa ama akhtar buu ku ahaa wadada waad soo socotay waxay isu bedeshaa meel dhaxsan leerarku waa saddex casaan iyo cagaarku waa socod wadada waa ku furan tahay casaankuna waxa weeye waa ama guduudku waxa weeye waa joogso way kaa xidhan tahay wadadu meel u dhaxaysaa jirta haddaba meel u dhaxaysa oo labada mid aan ahayn baa jirta oo magaranaysaa huruud ah huruudu macnaheedu waxa weeye iska ilaali hadday marka hore cadaan ku ahayd casaan oo huruudu ku shidanto waa diyaar garow isu diyaar inaad dhaqaaqdo haddii marka hore ay ku ahayd cagaarna oo huruudu kugu shidanto waa isjir weeye wadadu way soo xidhmaysaa soo gaabi weeye okay marka wuxuu leeyahay su-aasha jawaabta koowaad ay leedahay iyadoo cagaar ii ahayd ama akhtar ii ahayd ayay huruud ii noqotay deetana waxaa dhici kara de ilmihii markaa inuu iskaba ilaalinba uu soo galo is yidhahdo wadadii waxa weye cagaarku mar hadduu tago way furanto is yidhahdo ayaa dhici kartaa way dhici kartaa marka marba haddii ay huruud noqoto meeshuna ciyaal ama dad taagan yihiin ha isku hallaynin iska soo gaabi gaariga deetana hadhow iska istaag deetana waxa weye ii yaro oo muddo yar buu joogaa kaasi 10 sekin aan dhammayn markaa iska istaag och bei gut loslaufen weil es ihnen zu lange dauert ilmihii waxaa laga yaabaa iyadoo guduudba ah inuu iska dhaqaaqo sababtoo ah sabarba ma laha ilmihii ama way ku dheeraatay inuu taagnaado intay ishaaradii magaranaysaayey u furmayso iyadoo isagu ay ka castaay iska dhaqaaqaya hadduu doono autofarman shubsan waxaa laga yaabaa ciyaalkii yaraa hadday 2 ama 3 yihiin inay isku ciyaaraan iyaga dhexdoodu ay soo riixaan oo kuwii kale mid intay soo riixaan xagga wadada kusoo tuuraan baa laga yaabaa dad iyagu ka dhigayo marka kaasina uu bade kusoo turturoodo wadada kugu soo galaa laga yaabaa marka almuhiim intaasiba iyo kuwo kale oo fara badan oo malaysan karto meeshu mar haddii ambalku waxa weeye uu kuu furan yahay oo cagaar ku yahay cagaarkiina uu ka tago uu huruud noqdo ciyaalna meesha ay taagan yihiin intaasoo sheeba way dhici karaan aynu eegno
وغشتك سؤال شنو وأفر ويه سؤال شنو ماتا أنصر فراغة في هويته أحسن تصديق تمرات وحال قولي أنا غايد فيك وضع يا كل نوع سعودي وضع سو أحد مقرر سيغاد فيك وضع باسكيلكا of the Gruppe von Kindern fährt عيال بوضع الصعدة جروبه شن أفر صدح وحد توكشق وضدي ما كنا ماتي عندد وكنا ماتي ومد كغشنا فيردن حالا دم بلا يساوي وضدي قاعدين بتصلح وتشرسا وهو يد سيدا ممكن تبغى الصومالي عادة ولا هاي موسيقى هذا كوب حياة يا وهو يداقضه ويكون دلعيهن أفر صوماليا كل سارن وهو موسيقى يكون دلعب ومد ولا رباينو الشاكيو وعادتنا mid walba inuu sheekeeyo rabaa la isdhageysan maayo mid walba wuxuu rabaa markaa ka kale inuu hadalkiisa ka qaylo bato sitiisa loo maqlo afartiini waad wada qaylaysaan wada yaro baaskiil baa ku dhac socota wadadii way dhamaatay kuma yani muusiga ay waxa sheegayo kuma jirto casharka laakiin waa yaro qurxinaya waxa ku sawiraya wadadii waa ciyaalkii ka dhamaatay adiguna waad mashquulsan tahay maxaad malay kartaa ama si kale baan u dhaahdo wadadii baa ku soo dhamaatay ciyaalkii adda wadadaadii weyneed way dhac socotaa maxaad malay kartaa dasti kida haddaba ciyaalku waxay samayn karaan suvite and the faban coben wadadii ayuu soo geli karaan wadadaadii bay soo geli karaan abstagen und warten bis alles frei ist way sugayaan ilaa wadada kale baabuurta marayso intay u furnaanayso intay magaranayso ay u banaanaanayso macquul ilama aha adla waxaa filayaa dhageysto weynana macquul kula ahayn bedanka loos of the faban fexen isaga oo ka fikirin ciyaalkii in ay wadadii magaranayso ay soo bedeshaan oo xagee u soo bedeshaan wadadaadii adiga aad magaranayso ay maraysay ay ku soo boodaan waa wax dhici kara weeye aynu eegno waxa weeye way inoo magaranayso akhtar bay inoo noqotay su-aashuna sidaas ayay sax ku tahay macnaha guudna intaas ayay xambaarsan yihiin sidaas ayaad magaranayso ayaad ku safe garaynaysaa bas isi hiya qishtig baa lagu sharaxaad badan halkan uma baahna halkani maxaa saxa baa lagu yiri maxaa sax ah aynu eegno ama aan sharaxo bidixda waxaa kaa maraya bahalkii la oran jiray magaranaysaa gurgurta aan u bixiya anugu magaranaysaa daraamkii baa kaa maraya anugu gurgurtaan idhaahdaa daraamkii baa halkaa kaa maraya wadadu yani qaacida kalaa ku siinayaa wadada laamiga fiiri adigu aad marayso horteena fiiri laamigu waxa uu leeyahay maxay sidaa baan idhaahdo laamigu wuxuu leeyahay maxay dhagaxaan yaryar baa lagu sameeyey dhagaxaanta yaryar markaad dul maraysidna waxay noqonaysaa wadadu qaylo badan bay sameynaysaa bay odhanaysaa wadada markaad ka baxdana waxay kuu tilmaamaysaa inaad ka baxda qayladii baa yaraanaysaa meel kasta oo wadadu ay nooca ka tahay ama dhagaxaan yaryar ay ka leedahay waxa weeye waa sida shpiil shaqaasaha weeye kala xaafadaha meel way iman doontaa meelahaasoo kale oo dhan waa inaad ku socotid weeye 10 ama 20 wax ma garanaysaa socodkoodu aad u yar yihiin waa qaacidada guud qaacidadana guud weeye aan markaa soo wareejino maxaa haddaba alla iga baahiya fuuli 3 jawaabood oo dhaadheer ayaa halkan la soo dhigay aynu eegno wuxuu ku yiri jawaabta koobaad maadaaf qofku wuxuu awoodaa ama uu samayn karaa ishqid geschwindigkeit inuu yani taayirka u rago ama uu ku socdo socodka dadka oo kale ama uu tallaabo rago qasht dhinaca midigtu isu badanayaa 4x faaran uu gaarigu ka haynayaa uu dhaafaya meesha van gesta nicht behindet werden dadka lugta meesha ku maraya haddayna khatar ku jirin marka dadka wadada maraya haddayna khatar ku jirin weeye marka macnaheeduna ay tahay haddii qofna meesha uuna marinin laana hadday dad marayaan ood adda kusoo dhaqaaqdo khatar bay dadkaasi ku sugan yihiin balaynu eegno hashtig waa su-aasha koobaad baan u malaynayaa ee hal xaba ay sax ka tahay inagu timid intay aynu soo wadnay waa kaas haddaba adigoo bal caqligaa ka shaqaysiiyo
xabadaasoo qura hadday sax tahay labadan kale iga hooseeya haddii aan ku dhufto way iga khaldamaysaa wacsaan bay noqonaysaa maxaan uga baahanahay haddaba inaan barto macnahooda iyo waxooda waayo imaba khuseeyaan be adiga haddaba jawaabta aan kaa rabaa haddii aan saxsanahayna hoos igula soo wadaag insha allahu haddii aan khaldanahayna hoos igula soo wadaag waxaad tidhahdaa waa noo sharax dheh ama haddii aan saxsanahay waxaad tidhahdaa waad saxsan tahay dheh si aan u ogaado bal idinkuna mentaliteedkiina ama sidaad u fikiraysaan aan u ogaado was muusan sii in diese situation beachten gaarigii waxa weeye baskii baa ku hor socda waxa weeye wadaduna waa wada yar weeye maxaad haddaba halkan iska ilaalinaysaa saddex jawaabood baa lagu keenay adigu mid qaado weeye waxaad awoodaa in aad shidid maxay israaca gaariga van blinklicht gaariga waxa weeye israac baa la yidhahdaa af soomaaliga afar tallaabadood ee gaariga muujinaya gaarigaas markaa inuu taagan yahay ama uu markaa dhaqaaqi doono ama xaalad uu ku sugan yahay khatareed israaca gaariga inaad shido uma baahid marka adigu inaad afartaa aad adigu isticmaashid si duurfur waxaad awoodaa baa lagu yidhi jawaabihii ay marayee gaariga baska meeshiisa maxadada baska loogu talagalay marka aad u gaadho in aad ku socotid socod gaaban adigoo taayarka rogaya gaarigii baska ahaa aad baasmarayso aad dhaafto van eine Gewundung von Fahrgästen ausgeschlossen ist baabuurta dadku marka ay magaranaysaayay ay kala go-aan ama dadku ay ku wada dhaafaan der Bus so lange nicht überholen wie er noch fährt basku intuu socdona ma dhaafisid der Bus überholen so lange er noch fährt marka kaas ayaynu eegaynaa baska ma dhaafi kartid intuu isagu socdo waayo waxa weeye haddii kale khatar baad gelaysaa isqashtig inoo saxsan tahay ta koobaad ee ugu sarreysa waxaynu nihi baski markuu istaago maxadadii loogu talagalay waad ishaaradaada ridanaysaa dhinaca midigta u ridanaysaa adigoo muraayadda dhex eegaya muraayadda kale ee bidixda kaa xigtana eegaya shuld blinkna sameynaya garabka magaraysa ama madaxa saa u leexinaya waxaad ku baran doontaa faashtuudahaad ku baran doontaa wadadii bidixda ahayd ilaa aad u balihide oo waxaa laga yaabaa imika wadada tii sii socodka wey tii kale soo socodkii ahayd baa kugu imanaysa aad u balihida gaari kale laga yaabaa inuu kusoo jiro inaad iska eegto wadada markay saafi kuu noqotona aad wadadii gaariga baski dhinac marto adigoo iska ilaalinaya welibana maxay dadkii baabuurka kasoo degay baska kasoo degay waxaa dhici karta qof isla wadada dhinaca ugo inaad laba u kala goyso su-aashii labaatanaad ee maantana sidaas ayay magaranaysaa ayay inoogu dhammaatay aynu eegna haddaba barnaamijkii talooyinka hore waxaynu usoo nidhi 200 ama 500 ama 400 ama 300 su-aalood haddii sida lagugu wado lagu fahansiiyo qaabka loo isticmaalayo talooyinkana iyadoo lagugu darayo hadha wixii ka dambeeya adigaa iswadi kara adigoon cidda u baahnayn maanta haddaba su-aasheena ama waxaan taladeena maanta aan kula wadaagaya waxa weeye su-aashana kugu timid ma taqaanid qaabka aad u isticmaalaysid ama mutasaxsan ma taqaanin seen ku ogaan kara haddaba anigoon macalina u baahnayn cid ii caawisan aan u baahnayn waa su-aal wanaagsan waxaan sameynayaa saddexdaba click baan ku sameynayaa deetana waxaan odhanayaa ausferten way ku nasibinay imka saddexdaba sax bay inoo noqdeen soo maaha waxaan baranayaa oo keliya macnaha xagga sare keliyaan baranayaa kadibna saddexdan ama tii ayaa markaa qabsanayaa waan dhaafayaa su-aasha markaad dhaaftay marka aan idhaahdo next fraga aan idhaahdo haddii aan isla su-aasha kusoo noqdo weli sidii bay tahay waxaan u baahanay waxa uu leeyahay waxaa kuu haray du kannst die Frage in 4,35 Minuten wieder ausgewerten yani su-aasha waxay kuu furmaysaa ama aad eegi kartaa weeye macnaha guud 4 daqiiqo iyo 35 sekin kadib markaa muddaan haystaa ogow waxaa leeyahay next tanoo kale imka igu timid sidii oo kale samaynayaa waxaan leeyahay eg waxay dhawa noqotay falsh quut
صباها تيبا صح هذا كوا اسكو توسبتي العلامدية تي وعلامدية تكهل دحاء وايدغا خلط marka labada saxda baan eegaraya waa qaybaya hore waxaan u soo dhigay maxay marka aad adigu ku nasiibsid kuma waafaqayo isagu kuma waafaqayo labaad saxday oo mid baad khaladay oo labada lagu qiimeeyo ku oran maaye laba haday sax yihiin oo mid khalada ku darto su'aashu dhanba ka wada gubanaysa marka sidaana waad ku baran kartaa casharkeedii baatana intaas ayaan ku soo afmeeraya waa walaalkiina Cabdiqani Xoosho idileh haddii uu casharka idin qanciyo ama aad ka hesheen walaalaha kale aad leedahay way ka faa'iideysanayaan u sii share gareeya ama u sii gudbiya barakallahu fiikum wixii tala iyo tusaale hoos loogu la soo wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh